بسم الله الرحمن الرحيم أصحابتي subax wanaagsan meel kasto aad dunida aad ka joogtaan ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay ciyaaraha saaxiibayaal maanta waxaan wadnaa barnaamijyadii hore ka duwan laacibka Sadio Mane oo muujiyay inuu muslim khaalis yahay ayaan faahfaahin doonaa saaxiibayaal haddii ay tahay markii ugu horeysay aad soo booqato channelkeena fadlan subscribe noo saar waana ku mahadsantahay saaxiib janqaadkaaga لاعبka kooxda Bayern Munich ee lagu magacaabo Sadio Mane ayaa muujiyay inuu muslim khaalis yahay kadib kooxda Bayern Munich oo sanad walba hal mar xaysiisa khamrida uu ka soo dhex muuqday asagoo wax khamriya aan taabanayn sawirka laga soo qaaday kooxda Bayern Munich oo xaysiinsa khamriga laga isticmaalo dalka Jarmalka iyo dhammaan qaaradda Yurub ayaa waxa ka soo dhex muuqday laacibka muslimka ee Sadio Mane saan ognahay waa laacib muslim ah wax badanna ka soo shaqeeyay muslimada dad badan soo caawiyay waxa uu ka soo dhex muuqday kooxda Bayern Munich ee ciyaaryahaneeda oo xaysiinaya khamrida markii kooxda Bayern Munich balaayadeentooda dhan oo kor u haya khamrida oo laga isticmaalo dhammaan qaaradda Yurub iyo adduunkaba waxa uu Sadio Mane muujiyay inuu muslim ka yahay uusan gaal ama qof khamri xaysiinaya uusan ahayn asagoo wax khamriya aan gacanta ku hayn kaga darankeed waxa uu sameeyay ficil wajigiisa laga dheehan karay asagoo aad iyo aad u nacsan inuu waxaan ka soo dhex muuqdo oo laga dheehan karay wajigiisa inuusan ku qanacsanayn ama uusan rabin inuu ka soo dhex muuqdo meel khamri lagu xaysiinayo ilaahay waxa uu xaraamiyay marka Sadio Mane ayaa waxa haya wargeysida dhammaan qaaradda Yurub dhan ayaa hadal haya kadib sawiradiisa oo lagu shaaciyay barta Instagram-ka ee kooxda Bayern Munich asagoo aad iyo aad shucuurtiisa ay ka muuqato inuu diidan yahay ama uu aad iyo aad u soo qanacsanayn inuu ka soo dhex muuqdo sawir noocan oo kala ah waxaana uuna khasab ku ahayd inuu ka soo dhex muuqdo maadaama kooxda Bayern Munich aan laga ogolayn in hal balaayar uu ka maqnaado maadaama kooxdu ay ka qaadato dakhli badan khamridaas marka Sadio Mane waxa uu muujiyay ficil aan inaba caadi ahayn waxa uu muujiyay muslimo aan wax laga gortami karin ayuu muujiyay Sadio Mane waxaan ku naqaanay waa xilligu joogay naadiga Liverpool inuu xaqi jiray suuliyaasha masaajidka ku yaala magaalada Liverpool waxaan looga bartay caawinta dadka muslimiinta ah waxaa looga bartay dhisida madrasooyinka waxaa looga bartay inuu dalkiisa Senegal aad iyo aad meel walba oo halka diinta iyo xagga dhalinyarada uu ka soo caawiyay marka Sadio Mane waxa uu sameeyay wax la fajaco oo la yaabo oo aan inaba caadi ahayn tusaysa dadka gaalada ah inuu yahay muslim inuusan diinta muslimka ahayn wax mar walba la geli karo marna laga soo laaban karo oo ah diin khaalisa oo aan macnaha wax walba ama guri aan diin kale loo gali karin marka sawirkan ayaa qabsaday baraha bulshada adduunka oo dhan iyo wargeysada marka waxa isweydiin leh maxay tahay sababta uu Sadio Mane uga soo dhex muuqdo khamrida dad badan waxa isku haystaan maxaa sababay hadduu muslim yahay oo soo dhex muuqanaya ficilka uu sameeyay iyo isweydiinayaan gaaladu maxaa uu la jeedaa Sadio Mane muxuu yistaankan aadka macnaha wajigana uu muujinaya in khamrida laga isticmaalo dhammaan qaaradda Yurub khaasatan dalka Germany maxay tahay sababta marka halkan ayaan ku faahfaahinaa saaxiib waxaan ognahay in diinteena islaamka aysan ogolayn in khamrida la cabo in khamriga laga soo dhex muuqdo meel ay khamri taal ay xaraan tahay maqdac ay tahay oo wax aan fiicnayn qofka muslimadiisa maadaama ay bedelayso miirkiisa oo dhan aysan u fiicnayn qofka shakhsiyadiisa iyo caafimaadkiisaba oo ay ka dhigayso qof daraagaysa aan joogin ama maqan ama qofka hadduu murug hayso ay gaaladu si aaminsan yihiin oo dhan ay murugadaas ay u cabaan iyo wax ay ilaahay xaalmiyay oo dhan marka tan kalena waxa uga soo dhex muuqday laacibka lagu magacaabo Sadio Mane waxa mastiya hal ciyaaryahan inuu iska maqnaan doonin kooxda Bayern Munich oo sameeyay sanad walba xaysiintan oo kale ee khamrida laga isticmaalo qaaradda Yurub waxa ay macnaha dadka iskale ama kamaniga khamrida iskale waxa uu shartigiisa ka mid yahay oo lacagtu ku siinaya kooxda Bayern Munich in hal qofna uu iska maqan ciyaartooyda ee u dheela kooxda Bayern Munich kulna dhalada kor u qabtaan laakiin Sadio Mane ayaa ka biyadiiday kooxdiisa oo dhawaan galka ku yahay kooxda Bayern Munich
inuu khamri gacanta ku qabto oo asagoo xaysiinaya halkaas uu kooxda ugu raadinaya dakhli. Sadio Mane waa diiday waxa uuna sameeyey wax ay la fajacaan dhammaan ciyaaryahanada kooxda Bayern Munich. waxaan ogeyn in ciyaaryahano badan oo soo dhaleen kooxda Bayern Munich oo muslim lahaa inay ka soo dhex muuqan jireen ayagoo khamrada gacanta ku haya, laakiin Sadio Mane waa uu diiday. waxa uuna sheegay in diintiisa aysan ogolayn in khamri iyo wax fawaaxisha oo ilaahay kala lahayn inuu gacanta ku qabto, laakiin uu kala qaybgalayo sawirka maadaama uu shardi yahay in sawirka laga soo qaado kooxda Bayern Munich balaayiriinteeda oo dhan. marka Sadio Mane saas ayuu sawirka uga soo dhex muuqday. waxa uuna sameeyey inuu diidan yahay inuu sawirkan ka soo muuqdo maadaama laga dheehan karay shucuurta wejigiisa inuu aad iyo aad u diidan yahay ama isku qanacsanayn kasoo muuqashada sawir noocan oo kale ah. marka jaridaha oo dhan ayaa madal haya TV-ga ugu weyn carabta ee Al Jazeera ayaa aad iyo aad u falanqeeyay kadib markii ay arkeen sawirkan oo si kidis uga soo dhex muuqday Sadio Mane. waxaan uu ku sheegay in sawirkan uu yahay sawir muujinaya in muslimku uu yahay dad aan dhici karin ama marba aan meel ku biiri karin sida diinta Kristanka iyo Yuhuudda oo mar walba meel u duula. marka waxa uu sameeyay Sadio Mane in uu aad iyo aad u neceb yahay khamrida wejigiisa laga dheehan karay. saaxiib waxaan ku soo gabagabayn doonaa in diinteena islaamka aysan ahayn diin laga gorgortamo. dad badan waxaa jira islaama oo dakhli iyo hunguri iyo wax walba u doonta inay diin kale macna xaysiiyaan ama diin kale ku biiraan. waxa uuna dad badan oo muslimiin ah inay diinta islaamka ay iska laabteen oo ay u galeen xagga hunguriga oo lacag iyo dakhli ka samaysid diinta fawaxishka badan ee Kristanka oo dalalka adduunka waaweyn oo Mareykanka iyo Ingiriiska iyo dhammaan qaaradda Yurub aad iyo aad looga isticmaalo. subxaanallah, waa in diinta islaamka ay noqotaa diin aadan marba aadan meel aad uga bixi karin. wax walba ku yimaada ama xanuun ama wax walba mushkilad walba oo adduunka ugu timaada inaan waxa ahayn macnaha aan loo gorgortami karin. saaxiibayaal intaas ayaan ku soo gabagabaynaynaa. haddii ay tahay markii kugu horeysay soo boqoto channelkeenan fadlan subscribe noo saar, waana ku mahadsan tahay. xagga commentiga nagu reeb maxaad ka aaminsan tahay Sadio Mane iyo ficilka ku sameeyay kooxda Bayern Munich oo xaysiinaysa khamrida. waana ku mahadsan tahay saaxiib la jaanqaadkaaga.